munaasabadan oo lagu caleema saarayo hogaanka cusub ee ururka haweenka golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka ay doorteen 12 bishan ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda gudoomiyaha gobolka Banaadir xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo marti sharaf kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay munaasabada ayaa Xuseen haweenka ku jira golaha shacabka ay hormuud u yihiin howlaha wanaagsan ee ka socda golaha markaan golaha shacabka joognana waa nabadoono waa maaragtay aad bay u nuuriyaan kalarka maryahoodu u nuuriyaa maaragtay golaha shacabka gudihiisa haweenkeenu ama dumarka Soomaaliyeed xorriyadii dalka door weyn bay ku lahaayeen ama waxa la oran karaa guusha xornimada Soomaaliyeed waxa guddig u ahaa haweenka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale adduunka ina bartay intuba waxay qireen in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin dad karti leh awood leh dareen leh دكتوريسada ay koob ka tahay ay gudoomiye ka tahay دكتوريسada aniga waxaan isbaranay 95 iyadoo isbitaalkan kaaysanay maamulo ka ah ay maalintii 20 qofood 30 qofood ee la soo dhaawacayo ama la soo dilayo ay mar dhig leh ugu jirto waxaan ogahay dumarku kaligood runtii himilada ay leeyihiin ma gaari karaan haddaan rag ay la shaqeynin marka anaka taasa keentay inaanu si volunteer ah la shaqeyno kookaskii hore kan kalena diyaar baan u nahay xildhibaan Bibi Khaliif gudoomiyihii hore ee ururka haweenka baarlamaanka iyo xildhibaan Mina Xasan Shibis gudoomiyaha cusub ee kookaska haweenka golaha shacabka oo ka hadlay munaasabada ayaa si isku mid ah uga warbixiyay hadafka loo aasaasay ururkan baarlamaanadii naga horeeyay kookas ayaa jiray laakiin kookaskii jiray kookas la maqli jiray ma aha kookas soo shaqeeyay ma aha laakiin baarlamaanka sagaalaad waa kookas soo shaqeeyay xafiis lahaa muxuu ahaa tababaro soo qaatay women empowerment ka soo shaqeeyay soo gaarsiiyay maanta inay gabdhaha helaan 36 inaan maanta aan u soo istaagno laakiin waxaana laga rabaa wax qabad iyo ku dayasho iyo wax taariikh leh oo taariikhda galay inaan gabdhaha Soomaaliyeed uga tagno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxtarka haweenka Soomaaliyeed uu ka muuqdo wax qabadka wanaagsan ee maamulka gobolka Banaadir oo ay ku leeyihiin xubno aad u fara badan waxtarka iyo hogaanka wanaagsan ee gabdhaha Soomaaliyeed waxa tusaale ugu filan maamulka gobolka Banaadir sida maanta uu yahay waxa runtii gaarsiiyay oo aan ku faanaya kaalinta gabdhaha ay ka qaateen haday tahay heer gobol iyo heer degmada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay ururka haweenka golaha shacabka looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo raadinta xuquuqda ka maqan haweenka isla markaana uu garab taagan yahay in 66 xubno xildhibaano ah oo haween Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin baarlamaanka ayna samaysteen urur haween oo ku jira baarlamaanka iyagoo 66 xubnood ah waxay ka turjumaysaa koow horumarka dalkeenu uu gaaray labo waxay bixinaysaa fursad ah meesha ay fursad u leeyihiin inay gaaraan annaguna haddii aan nahay ragga Soomaaliyeed ay tahay inaan kala shaqeyno waxaan leenahay 66 waad u qalantaan intaas ka badanna xaq baad u leedihiin oo isticmaala ururkan aad samaysaan inaad soo dhacsataan xuquuqdiina annaguna waan idin garab taaganahay hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa haweenka baarlamaanka soo gaarsiiyay hambalyo uu ka waday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo dardaaran dhaxalgal ahna u diray hogaanka ururka haweenka golaha shacabka waxaa la idinka baahan yahay dhammaan ajandooyinka haweenka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka ay qabaan in aad ka dhigtaan ajandada nationalka tan qaranka aad ku soo dirtaan baarlamaanka aad keentaan si wax lagu qaban lahaa in aad duubataan waa xilka ugu weyn oo idinka sugan garabkiina lacag galo guddoon shaqadiisii ma fududa
ma fududa waxay u baahan tahay deganaansho sabar waa lagu korsoconaa waxaad yeeshay waxaana yeelin waa lagu eedeynayaa in loo sabraa la qaataa marka waxaa waaye shacrata macaawiya waxa la yidhaahdo tin baa idin dhexaysa adinkii dadka aad hogaaminaysa markay jiidaan waa loo dibciyaa Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.